wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta Somaliland iyo wasiiru dawlaha wasaaradda waxbarashada ayaa dhagax dhigay dhismaha jaamacadda u gaarka barashada culuumta shariicada islaamka iyo luqadda carabiga al-Najaax ee magaalada Burco oo noqonaya dhismo aad loo casriyeeyay kaasoo loo dhisay hanaanka jaamacadaha ku yaala dalalka ka horumaray cilmiga iyo dhaqaalaha munaasabad kooban oo loo qabtay dhagax dhigaasi ayaa waxa ka qayb galay wasiiro culimaaddin ganacsato abwaano madaxda shirkadda dhismaha ee Najaax Construction Company qaar ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka ee Somaliland iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxa ka hadlay goobta dhagax dhiga gudoomiyaha jaamacadda al-Najaax Dr. Faisal Mohamed Ali oo ku baaqay in ummadda islaamku ay ka qayb qaataan dhismaha jaamacadda islaamiga al-Najaax sidoo kale waxa ka hadlay madasha culimaaddin ka socday magaalooyinka Burco iyo Laascaanood uqaal salaadiin ganacsato abwaano mas'uuliyiin ka socday shirkadda dhismaha ee Najaax iyo shirkadda isgaarsiinta Telesom gudoomiyaha ururka kaalme kuwan Cabdi Maalig Muuse Coldoon ayaa goobta dhagax dhiga ku gudoonsiiyay maamulka jaamacadda Najaax $1,200 Mareykanka xafladeenu walaalayaal waxay ku saabsan tahay in maanta uu bilaabmayo dhismihii jaamacatu an-Najaax jaamacadaas oo ku taala gobolka Togdheer magaalada madaxdiisa Burco ee muddo 2 sanadood iyo dheeraadna furay dhismaha sida boorkaba ka muuqata walaalayaal wuxuu ka kooban yahay dhismayaal kala duwan waxa kamida 3 dhismo oo waaweyn oo dhismayaasha halka iska xiga ah aan ugu talagalay in 10 sanadood soo socda insha Allah ta'ala arday kasto jaamacatu Najaax ay qaadato ama kuwa gobolka jooga ha noqdaan ama kuwa meel kale ka yimaadayba ha noqdaan meeshii ay wax ku dhigan lahaayeen jaamacaddu waxay imika haysaa arday 400 gaaraya maadaama ay jaamacaddu si degdeg ah u korayso waxaana waxa weeye rajaynaysaa sanadkan 150 ilaa 200 oo arday inay soo galaan waxa isaguna jira dhismo kale oo kuwa la mid ah oo loogu talagalay maamulka jaamacaddan waxaan u dhisayn garaynay sida jaamacadaha caalamiga waxa kamid ah hoygii macallimiinta maadaama jaamacadda imika ay wax ka dhigaan macallimiin ajnabi ah masaajidkii baytullaahigi baa kamid ah oo masaajidka dhexda ku yaala aadka u quruxda badan waxa kamid ah hoolkii lagu shireeyay ummadda muslimiinta ah ee Soomaalida ah waxaan u soo jeedinaynaa baaq ah jaamacadda maanta dhismaheedii uu ka bilaabmay oo waxa weeye wax ku filan aan loo haynin inay ka qayb qaataan mashruucan ballaaran ee intan leeg yaa inoo dhisaya ma Kuwait baa inaga caawisay maya inta midna maaha mahad gaar maanta halkan waxaan uga soo jeedinayaa shirkadda Haas $150,000 ayay markaa kaga qayb qaateen waxay la tahay jaamacadda Najaax way najaxday waxaan leeyahay geeska Afrika oo dhan baa jaamacaddan ka faa'iideysan doonta waxaan ku warqaatay jaamacaddu inay tahay jaamacadda kaliya ee dadka macallimiinta ka yihiin daraasaad culiya dadka soo baxay oo waxa wadaan wax dadka oo dhan wada anfacaya ilaahay haydu ku kuleeyo jaamacadda haleeswad barbar taago dhismaheeda waxa dhici doonta jaamacadda oo dhamaatay oo inteena joogta kii waliba leeyahay anna waxbaan ku lahaa maanta kala quban tahay buug baa la qorayaa wixii wax bixiya ma wada sawiray dawlad hoose ahaan waxaanu ma ku wareejinaa jaamacadda Najaax dhul dhan 100 balood ka dawlad hoose waxaanu ballan qaadaynaa wadada soo gashay jaamacadda Najaax ee imika la dhisayo inaanu si degdeg ah u shaahiga wadooyinka inaanu qayb weyn ka qaadan doono waxaan rajaynayaa insha Allah jaamacaddani in ay inoo hirgasho wana hirgelaysaa jaamacaddan Ilaahay inoo suurtageliyay waxay timi waqti aynu u baahnayn dhammaanba dadka af Soomaaliya ku hadla ay muhiim u tahay wax ka barashadeeda iyo wax ku bixinteeda labadaba Najaax iyo Najaax oo isgalay labaduba najaxayaan insha Allah ayaan rajaynayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala jaamacaddana tii lagu naalooday ummadda u hirto Allah ka yeelo Ali Daahir Maxamed Boos TV Universal Burco.